الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما برشاد رير سوماليلاند waxaan u hambalyeeynaa farxadda maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May. guud ahaan waxaan dadkayga ugu bogaadinayaa gudaha iyo dibadba dabaaldega sanad guurada 22aad aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa nabadgelyada iyo nimcada uu inagu iyo horumarka uu ina siiyay. waxaan idin cadaynayaa in waddanka Soomaaliland uu yahay waddan xor ah, nabdoon, isla markaana dimuqraadi ah. waa waddan ina deeqa oo inagu filan. waa waddan dadkiisu gacmahooda ku dhisteen. waa waddan ay dadkiisu ilaashanayaan. waa waddan ay dunidu ixtiraamto. walaalayaal, waddan kasta oo wax ka dhiga dadkiisa waxaa horumar gaarsiiya ummaddiisa. wuxuu taabagal oo iyo horumar ku tallaabsadaa marka uu codkiisu meel wada jeesto, iskuna duubnaado, iskuna midoobaan, qarannimadooda u midoobaan. horumarka dalku waa halbowlaha koowaad ee aynu hiigsanayno. waxaad ogtihiin halka uu dhaqaalaheenna waddanka uu marayay, waana ka waraysaan halka aynu gaarsiinay, balse weli fari kama qodna. weli waxaan u faydanahay sida aynu dhaqaalaheennu u gaari lahaa meel halkaa ka sii fiican. waxaan garwaarsanay baahida jirta iyo heerka ay nolosha bulshadu marayso iyo duruufaha kala duwan ee ay ku nool yihiin dadkeennu. waxaanu garowsannay oo ognahay xilka iyo mas'uuliyadda iga saaran cidna igama jecla in ay gaaraan nolol aad u fiican, waxbarasho, caafimaad, cunto iyo biyo ku filan. waxaase ka xumahay in dadka iyagu maanta dayacan yihiin, ay dayaceen xoolihii, degaankii iyo weliba beerihii. sidee baynu ku hormaraynaa haddaynan ku tabcin dhulkeenna, haddaynan u safrin oo u dhidhiin dalkeenna. walaalayaal, dunida maanta waxaynu isu furannay oo wufuud badan iyo dalxiisayaal kala duwan ay maalin walba inoo soo booqda. Soomaaliland waxay tiraahdaa hugaagu wuu kula marti tagaa. waxaanu dib u habayn iyo dhismayaal cusub oo bilicda ku samaynay xafiisyada wasaaradda dowladda oo badankooda. waxaanu ka bilownay caasimadda waddooyin casri ah si aynu ula tartanno caasimadaha dalalka jaarka ah iyo kuwa dunida. insha allahu gobolladana waanu gaarsiin doonaa. waxaanu dardargelinay dhismaha waddooyinka laamiga ah ee magaalooyinka isku xidha. waxaanu idinku baaqayaa inaad gacan ka geysataan oo aydan waxba kala hadhin bashaaradaas kala duwan ee aynu ku tallaabsannay furintooda. beesha caalamku waxaan leenahay dadka iyagu waxay u tashadeen aayahooda. dadka iyagu waxay la soo noqotay dalka iyagu wuxuu la soo noqday madaxbannaanidiisii iyo qarannimadiisii. Soomaaliland waa xaqiiqo jirta, sax iyo xaqtoona maaha in beesha caalamku iska indha tirto ama iska dhiga tirto xaqiiqda aan humaaga lahayn. bulshada Soomaaliland waxay xaq u leedahay self determination sida bulshada caalamku intiisa kale. dalkani maaha waxa la dhashay, wuxuu leeyahay taariikh. wuxuu dadkiisa u soo galeen halgan dheer. dadaalkaas way ku hantiyeen gobonnimadii 1960kii gumaystihii dalkoodana kaga kiciyey gacmahooda iyagoo rabbigood la kaashanaya. midnimada maanta la hadal hayo dadkana horseed u ahaa iyadoo ay niyad wanaag iyo walaalnimo qalbigooda ka buuxdo.
nasiib darro maalintii la israacay 5 maalmood dabadeed midnimadii waa lagu hungoobay waxayna ahayd 5 Juulaay markii Yuusuf Ismaaciil Sabatan Gandhi khudbaduu ka jeediyey daboolka kaga qaaday xaqiiqda jirtay inay ahayd israaci aanu isku dhicin sidii laga filayay midnimadiina lagu hungoobay waxay ahayd dhacdo aan la dafiri karin in dastuurkii la isku raaci lahaa ee Soomaaliya iyo Soomaaliya ku midoobi lahaayeen dadkii reer Soomaaliya ay 90% ugu codeeyeen mada no iyagoo diidmo qayaxan kala hor yimid balse nasiib darro dagaal laga furaystay taasi waxay dhaxalsiisay inqilaabkii dhallinyaradii saraakiisha ahaa ee reer Soomaaliland iyagoo xilligaas sameeyeen kaasoo bannaanka soo dhigtay dabashadii iyo dareenkii reer Soomaaliland gilgilashadii ismay taagin waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta ee loo yaqaanay bakayla qalad iyo iscasilaadii wasiiradii reer Soomaaliland ee xilka ka hayay xukuumaddii Muqdisho waxaana ahayd nasiib darro inaan la tixgelin dareenka sida imika caadada ah in Soomaaliya in dad suuqa jooga aan matilin bulshada lagu buuxsado kuraasida waxay ahayd quustii ay dadka reer Soomaaliland israaci kaga talax qabeen muddo yar kadib waxaa bilaabmay qalaalaasihii iyo afkambigii dowladdii dictatorada ahayd cid dambena tale lama weydiin waxaana laga warhayay iyada oo dadka la isku xidhxidhay laguna xasuuqay jasiira ganacsatadii qoorta la isugu dabay oo la dhigay Murco malka durduro kalsheer iyo goobo badan oo aan tiro lagu soo koobi karin waxay ahayd safar xanuun badan iyo wax naxdin leh oo aan la ilaawi karin diyaaradii Hargeysa ka kacay duqeynayay maatada Hargeysa ka barakacayeen ilaa intii ay dhaafeen xuduudda Itoobiya waxaan leeyahay madaxda bulshada Soomaaliya intisaha midnimada annaga keenay nalama khasbin shalay annaga Soomaalinimada dan moodaynay oo waana la nacsiiyey annaga bilaa shuruud iyo is-aami ku tagnay waxaana lagu kalifay inaanu idinka aaminka baxno waxaanu soo tijaabinay midnimada kalsooni dambena naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenaynay waxaa kaloo ay nagu kaliftay madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliland waa laba taabtaan go-aanka bulshada ka timid bulshadu ka yimid gumcna mujaahidiintay ku dhalisay gargaarka ee bera ayay ku dhisan tahay haddaba walaalayaal midnimo hadhay oo shantii Soomaaliyeed soo noqon mayso eeyaynaan walaalnimada seegin Soomaalida Jabuuti waa dawlad ilaahayna au barakeeyo dawladnimadooda Soomaalida Kenya dawladoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna au barakeeyo Soomaalida Itoobiya dawladoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna au barakeeyo Soomaalilandna halkeeda Allah ugu barakeeyo dhammaanteedna walaalo iskaashadaa aan ahaano sida walaalaha Carbeed waxaanu midnimada u taagnay qaran dimuqraadiya oo ku dhisan axsaabta badan madax bannaanida garsoorka golayaasha sharci dejinta iyo xukuumadda kaasoo ku salaysan mabaadida caalamiga ah dowrista xuquuqda aadamaha maamul wanaagga horumarka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaanu dib-u-dhis horumar ku samaynay maamulka dowladnimo amniga difaaca qaranka iyo adeegga bulshada inagoo ku galownay wadannada aynu jaarka nahay waxaanu adduunyada kula dhaqannay jaar wanaag wax wada qabsi iyo inaynu faragelin ku samayn
arrimaha u gaarka ah ee dalalka kale dhammaan tallaabooyinkaasi waxay dhabada u xaadhayeen inaynu ka midha dhalinno qadiyadda madaxbannaanida jamhuuriyadda somaliland waxaynu ku tallaabsannay inaynu u soo bandhigno beesha caalamka jiritaankeenna heerka aynu gaadhnay iyo sida ay inaga go-an tahay hanashada madaxbannaanadeeda waxaynu ka badheernay inaynan cidna uga waaban inaynu tagno kana qayb galno golo kasta oo lagaga hadlayo arrimaha somaliland tallaabadaasina waxay inoo soo kordhisay inaynu qadiyadeennu gaadhno fagaarayaal badan oo aanay hore u gaadhin inaynu qadiyadeennu noqoto mid caalamka xogogaal intii hore ka badan u noqdo maanta inay abuurmaan dalal badan oo danaynaya gogol loo fidiyey wadahadallada soomaaliya iyo soomaaliya waxaan kulamadaas ka dhashay kana soo baxay heshiisyo caalamka goobjoog ka yahay oo sumad u ah jiritaanka qaranka somaliland inaan faragelin lagu samayn karin qarnimada somaliland wax walbana lagu dhammaystiro wadahadal iyo wadaxaajood ku dhisan nabadgelyo iyo is-ixtiraam waxaanu kasbannay daneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dalkeena gudo iyo dibadda maanta arrinteennu arrimaheenu waxay galeen marxalad cusub oo aynu ku xaqiijinayno horumarka dalkeenna iyo hanashada madaxbannaanida geed gaabana waynu u fuuli god kasta oo ay nala gashana waynu ka saari doonaa insha allahu tacaala gabagabadii nabadgelyada midnimada ummadda iyo difaaca qarnimadu waa asaaska dowladnimada waxaan salaam bogaadin iyo mahadnaqo u soo jeedinaya ciidamada kala duwan ee had iyo habeen u taagan ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarnimada dalka waxaa taa la mid ah aan u soo jeedinayaa waxbaradka madaxdhaqameedka culimada dhallinyarada haweenka iyo dhammaan muwaadiniinta ku garab taagan gudashada xilkooda waxaan ugu baaqayaa shacabka reer somaliland inay isu taagaan dib u dhiska iyo horumarka dalkooda inay dhexda u xidhaan una midoobaan ka difaacidda qarannimadooda cadowga gudaha iyo dibadda waxaan ugu baaqayaa inay dhowrtaan sharaftooda gobonnimadooda dhaqankooda iyo diintooda marxalad kasta oo ay ka hor timaadana ay kaga gudbaan wadajir iyo midnimo waxaan ballan qaadayaa inaan dalkayga iyo dadkayga ku hoggaamiyo dariiqa horumarka dhowrista xuquuqda amniga difaaca qaranka